mudan yahay inaan ku salaamo. waxaan marka hore idinku salaamayaa dhammaantiin qof kasta maqaamka iyo darajada iyo xushmada uu halkan ku yimid. waxaan si gaar ah u salaamayaa dadka madaxda ah ee halkan jooga oo ay ugu horeeyaan xildhibaanada dhalinyarada ah ee walaalaha ee aad doorateen, xildhibaan Ismaaciil, xildhibaan Muniira, walaashay xildhibaan Anisa, madaxda halkan joogta oo ay ugu horeeyaan qabanqaabiyaasha madaxda tala wadaag, odayaasha dhaqanka, aqoon-yahanka, culimada, gabdhaha, dhalinyarada, mas-uuliyiinta ila socotay xogayaha koowaad ee safaaradda iyo agaasimaha warbaahinta qaranka ee waqooyiga America, walaalkay Cabdixakiim. guud ahaantiin waa hubaa dad aad iyo aad u xushmo badan oo aad iyo aad u sharaf badan oo mudan inaan xuso halkan inay joogaan, laakiin aqoon darrada iyo hilmaanka bini aadamka awgiis waa ka cudur daaranayaa ciddii sida ay mudneed aanan u salaamin. dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda alsalaam, waxaan marka hore dhammaantiin idinkaga mahad celinayaa ishraafka iyo karaamada iyo weyneynta iyo qadarinta aad i qadariseen ee halkan aad u timaadeen inaad isharaftaan, aniga oo og oo dareensan in ninkan dhalinyarada ah ee aad ka sharafka badantihiin, ka cisiga badantihiin aanay ahayn waxa aad u timaadeen ee ay tahay qaranka Soomaaliyeed iyo darajada dowladnimada inaad weyneysaan. waxaan si gaar ugu mahad celinayaa tala wadaag, odayaasheeda iyo xubnaheeda dhammaantood, si gaar ah dadkii ilaa iyo intaanan Soomaaliya ka soo tegin ila xiriiraya Cabdishakuur, walaashay Kawsar, Rawdo, adeerkay gudoomiyaha iyo khiyaarta kaleeto Mahad Qorqor, mas-uuliyiintii kaleeto ee halkan joogta. dhammaantiin waxaan dib u dhiganayaa dad gaar oo raba inaan si gaar u xuso. aad iyo aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sharafta iyo karaamada aad ii muujiseen iyo waqtiga aad soo bixiseen, anoo dareemi kara inay waqti dambe tahay, anigoo dareemi kara in duruufuhu aanay u sahlanayn halkaan in waqti badan dadkaani ay fadhiyaan habnololeedka aad ku nooshiin awgeed, anigoo dareemi kara in maalintiinii fasaxa ee shaqada aad ka nasanayseen muxuu ahaa halkan aad ku bixiseen. intaas ka sokow, inta aanan hadalkayga oo intiisa badan halkan waxa aad iga filaysaan ay ku qoran yihiin aanan gelin, waxaan jeclahay marka hore inaan idinkaga mahad celiyo guud ahaantiin, gaar ahaan dad halkan jooga oo runtii aniga saameyn gaar ah igu leh, qiimo gaar ah igu leh. sababtu waxa waaye aqoonta aan u leeyahay iyo waxaan ogahay ee ay soo qabteen. anoo huba inay joogaan dad kaloo badan oo aniga laga yaabo in aanan aqoonin ama aanan la kulmin oo shaqadaas oo kale soo qabtay. dadkaasaan xusi doonaa waa wakiilo adinka idin matala, waxayna tusaale u yihiin ciwaanka halkan ku qoran doorka qurba joogta iyo waxa Soomaaliya aad ka haysaan, oo runtii aniga kaliya aanan ahayn qofka og Soomaaliya waxa ka socda, iyo aniga kaliya inaanan ahayn qofka soo adeegay ee halkan jooga, gaar ahaan waqtigan dambe dowladnimada ay muxuu ahaa joogto. odayaal aan si gaar ah u xusi doono ayaa jira halkan. dadka halkan jooga caawa qofkan ugu horbartay oo xusuus gaar ah igu leh oo aan rabo inaad u sacbisaan oo halkan ka sheego waa Deeqa Soona. Deeqa Shire waa isla soo kornay almost, shaqadaan isla soo kaano korisay, annagoon is arag ayaan hawada saaxiib ka ahayn 20 sanadood ku dhawaad. qof soo shaqaysay oo soo halgantay oo dadka Soomaaliyeed iyo dalka ummadda Soomaaliyeed shaqo weyn xirfadeeda ugu soo qabato ilaa maantana u taagan waaye, iyada oo aan dhaqaale ka samayn oo aan darajo ku haysan. runtii waxa ay u xilato aan ahayn in qarankeeda u adeegto. aad iyo aad bay u mahadsan tahay. waxaa kaloo halkan jooga Cabdixakiim Cabdi Ismaaciil oo sida uu sheegay 14 sanadood microphone-ka idinka daba sitay oo warka idinka qaaday, oo dadka Soomaaliyeed qaar badan oo kamid ah halkan jooga aniga aanan aqoonin isaguna baray talentigooda iyo macnahooda. markay igu hor yimaadeen Ismaaciila kamid ah xildhibaanka oo dabcan dadka wajigooda maanta ay igu horeysay, laakiin sida qof aan aqaan oo kaleeto ay ahaa
isagana waxaan rabaa inaa u sacbisaan shaqada weyn oo dalkiisa u qabtay weliba si bilaasha isagoo kaamirooyinkiisa iyo microfonkiisa iyo qalabkiisa iibsada aad baad u mahadsan tahay waxaan hubaa sida shaqadu ay qalbigiisa ugu taallaa inay uga dhadhan fiican tahay inuu mushaar ku qaato sababtoo ah waa wax doonistiisa iyo danayntiisa ka yimid iyo rabitaankiisa halkan waxaa jooga nin la yiraahdo aadan shimbiralays abwaan aadan shimbiralays abwaan aadan wuxuu dadkaas oo dhan uga duwan yahay halkan uu ka tagay isagoo shaqaysta oo nolol fiican haysta xamar uu noogu yimid wuxuu yiri inaan shaqeeyaan rabaa isagoo aan mushaar qaadanaynin oo isagu baabuurkiisa soo ijaarta oo bajaaj soo raaca oo soo lugeeya ayuu wasaaradda warfaafinta nala jooga wuxuu dad badan marka uga duwanaa xamar sheeko caanaha jirto la yiraahdo saaqaas ay gelin waa maqashan soo maaha dadku meelaha kulul waa ka dhuuntaan khawaarijtu meelaha kulul ay ka mid tahay aadan heesta halkan uu ka qaaday shabaab uga hadlayo waxa xumaanta nimanka ku dhex jirta uu ku tilmaamayo asagoon cidina lacag ku siin ayuu dareenkiisa ku curiyey maankiisa ku laxameeyey lacag ku bixiyey ku tumay qaaday oo gobolada geeyey xeryaha ciidamada ka qaaday maantana waa mid ka mid ah suugaanta ugu badan ee ciidankeenu ay furimaha dagaalka ka shitaan runtii culummadu ha iga raalli ahaadaan laakiin nuxurka ay xambaarsan yihiin ereyadaas uu ka hadlayo waa nuxur diineed oo uu ka hadlayo caqiidada islaamka sida ay u fasaadiyaan oo ay dhibaatada ugu yihiin ummadda ugu yihiin oo ay dhibaato ugu hayaan marka tusaale kaleeto oo mudan in la mahdiyo oo loo mahad celiyo waay halkan waxaa fadhiya walaalkay maxamed barre oo sida la sheegay dadka dowlad dhiska Soomaaliyeed aqoontiisa u hibeeyay oo shaqooyin aad u adag dalkan u soo qabtay gaar ahaan laf dhawr u ah dad maqasheen guulaha dhaqaale ee dowladdeenu ay gaartay deynta la cafiyay kobcinta dhaqaalaha dadka 24 saac u fadhiyay oo daaha gadaashiisa ka qaabeynay oo waxaad arkayseen oo madaxda fulinay soo qaabeynay ayuu ka mid ahaa aad baad u mahadsantahay waxaan halkan ugu dambaysiinayaa nin saaxiibkay oo aan jeclaan lahaa inuu istaago oo la yiraahdo Xuseen Jaabiri Xuseen ina istaagtaan jeclaan lahaa si lagu arko Xuseen nin wax bartay waaye 2012 ayadoo xaaladdu iska adag tahay ayuu Muqdisho noogu yimid wasaaradda ayuu la taliye ka noqday runtii waxyaabaha aqoontiisa iyo imaatinkiisu ay suurto geliyeen ee wasaaradda warfaafinta ay u suurto geliyeen waa waxyaabaha ugu waaweyn aan ku faano waxyaabaha aan ku xusuusto waxa kamid ah markii uu noo yimid baa la yiraahdo xeerka saxaafadda oo dhib badan oo aad maqasheen oo la dhaqaajin waayay oo mashruuc iska noqday maalinba meel la geeyo ninkii ka shaqeeyay ee isku dubbariday ee nidaamiyay ee ilaa maaragtay madaxdu ay saxiixday isagoo aan waxba ku qaadanaynin oo aan mushaar ku qaadanaynin oo maaragtay volunteer ah ka shaqeeyay ayuu ahaa waxaa kale oo uu ka shaqeeyay siyaasado badan oo siyaasadda wacyigelinta qaranka ay ka mid tahay wasaaradda warfaafinta isaga iyo nin la yiraahdo Allah u naxariistay injineer Iriso maayirkii hore magaalada Muqdisho waxay ahaayeen raggii qaabeeyay waxa hadda anagu aan sheeganaynay ee maaragtay soo noolayntii wasaaradda iyo dhismihii hay'adaha warbaahinta qaranka dadkii gadaal ka taagnaa oo qaabeynaya oo xirfadiisa dalka ugu deeqay ayuu ahaa aad baad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa inuu si wanaagsan idin taageeray waxaan u malaynayaa tani waa iska kaftan hayga raalli ahaadeen haddii ay jiraan dad la tartamaya laakiin waxaan maqashiisanahay inuu musharax yahay in loo hiiliyana waa codsan lahaa maaragtay intaasaan mushaarkii uu nagu lahaa intaasaan rabaa inaan ugu gudo insha Allah aad baad u mahadsantihiin dadkaas qiimaha badan ee Soomaaliyeed dad kale oo runtii maaragtay walaalkay Abuukar Sanay Professor Abuukar oo isagana halkan jooga ayaa kamid ahaa runtii dadka aan xusuusto ee waqtiga adag soo geliyay dad kale oo badan oo halkan jooga sidaas oo kale taana waa jiraan aad ba macnaheedu waxa waaye dalka Soomaaliya waa loo wada adeegaa qofba meeshuu joogo iyo capacity-giisa iyo awoodiisa ayuu ugu adeegaa sida haday abuukaato uu ka hadlayo qof qalin ku taageeray iyo qof xirfad ku taageeray iyo qof dhaqaale ku taageeray يعني wax la wada qabtay way wax Soomaaliya ka jira
intaas markaan ka imaado waa waqti dambe waxaan isku dayi doonaa inaan toos u aado mawduuca labada mawduuc halkan ku qoran intaanan aadin waxaa ii farxada Mareykanka oo hadda aan u maleynay caawa in habeenkii 13aad ay tahay intaan joogo runtii waxaan ku faraxsanahay dadka aan la kulmay ee Soomaaliyeed ee qiimaha badan ee macnaha badan leh oo ka macno badan intii aan filayay waana dhiirigelisay runtii aad iyo aad bay noo dhiirigelisay hadday ahaan lahayd dhinaca siyaasadda oo laga bilaabo Minnesota oo aan ka soo bilaabay walaashay Ilhaan Cumar xildhibaanada sharafkeena iyo magaceena runtii meesha weyn gaarsiisay qiimaha weyn u yeeshay dad badan oo aan Soomaali aqoon muxuu ahaa wax u tartay dad jiilal badan ay sheegan doonaan waxa ay gabadhaas yarta ay samaysay xildhibaanadii deegaanka xildhibaan Sabakaab xildhibaan Maxamuud Nuur xildhibaan Hodan Xasan maayer Naadiya dhammaantood aan mid ula kulmay shaqada ay hayaan iyo saameynta ay bulshooyinkooda ku dhex leeyihiin magaalada Seattle oo maayer Maxamed Cigaal nin Maxamed Yare la yiraahdo oo gudoomiyaha Takwila hadana magaca qaldin magaaladaas golaha deegaanka madaxwa gabar yar oo Xamdi la yiraahdo laakiin dekadaha iyo aeroboorada magaaladaas dhowr boqol bilyan budget arran garaysa oo maamusha dadka go'aan kale kamida sharaf weyn bay u hayaan dadka Soomaaliyeed caawana halkan ay xildhibaan Ismaaciil iyo xildhibaan Muniira iyo xildhibaan Anisa ay joogaan wax weyn oo dadka Soomaaliyeed ay tahay inay ku faanaan waa runtii horumarka aad samayseen kaftan yar jiray saaxiibkii Xuseen Jaabir aadan u kaftami jiray marka injineeriyiinta waa taqaanaan Allah la xariistay Yurub ka yimid Ingiriis ka yimid marka anagu diasporada kala ma naqaano madmadooba Allah ku yaqaano waay markasta laakiin Yurub taan nagu badneedo Xuseenna waa taqaaniino baraawo magaalada Iraaw ka yimid niman reer mudugaho Ingiriiska ka yimid markasta waxay dhigi jireen Mareykanka anaga ka qatarsano markasta ninka wuxuu dhigi jiray oo haye marka timaada iyada ka jawaabayso marka I hope inay xujadiisii fushay oo ay ka jawaabtay dadkaas marka guuleystay ee Soomaaliyeed ee nolosha horumarka ka sameeyay ganacsiga leh dhalinyaro waxaan la kulmay dhaqaatiir kuwa bayloodyo kuwa injineer dad ganacsato oo dhaqaale fiican sameeyay oo nolosha meel fiican uga jira runtii waa idinku faaneynaa waan idinku faraxsanahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idin karaameeyo aad iyo aadna waa u mahadsantihiin inta marka laga yimaado walaalayaal ujeedada ugu weyn oo nimid waxay ahayd sidii la sheegay inaan madxafkaas ka qayb galo 2,000 oo qof oo Soomaaliyeed oo u badan dad aan Soomaaliyeed ama tegin ama ku garaadsan ayaan kala qayb galay munaasabadaas oo dhaqankoodii la barayo oo afkoodii la barayo oo ciyaar dhaqameedkoodii la barayo oo qalabkoodii la barayo hawshaas ay ka shaqeeyaan dad Soomaaliyeed oo waday oo yahay nin la yiraahdo Ismaan Cali Gurey asagoo Soomaaliya ka tagay wax bartay wax badan ka qoray Soomaaliya waqtigiisa dhan uu hubeeyay inuu dadka Soomaaliyeed wax u reebo oo wax u taro Seattle sidaas oo kale xalay waqtigan oo kale dad Soomaaliyeed oo dhowr boqol ayaan sidaas oo kale wada joognay oo aan sheekaysanayna caawana oo hayaan jooga oo sidaas oo kale aan sheekaysanayno aan wada hadalnay markii ay dhamaatay muxuu ahaa munaasabadaas waxaan jeclaystay inaan dadka Soomaaliyeed arko intii aan awoodo laba ujeedo mid inaan dhageysto talooyinkooda halkan muxuu ahaa cilmiga faraha badnaa ee aqoonyahanku ay naga siinayeen fikradahaas inaan helno dhageysano iyo inaan maadaama wasaaradda warfaafinta aan ka shaqeeyo intii tabartayda dadka aan u warramo oo maaragtay su'aalaha ay qabi karaan wax badan ma qarsoona laakiin intii aan ogahay aan u sheego ujeedku intaas oo ahaa labada arrimood meeshaan yaalla haddii aan ku hormaro waxqabadka dawladda Soomaaliya ee hadda lagu sharfay madaxweynaha iyo prime ministerka hadda jooga lagu soo sawiray laakiin taariikh dheer iyo meel dheer ka imaanayso aqoon isku dhiib meel dheer ka timid markasta waxay u baahan tahay waqti badan iyo meesha laga bilaabayo marka la cabirayo dawladda Soomaaliya maxaa u qabsoomay waxay ku xiran tahay goorme xagee cabirka iyo mitirka la rabo in la saarayo xaguu ka soo bilaabana
laakiin markasta anigu jiilkayga ku soo noqdaa inta tabarteeda ah oo ah intii dib u dhiska hadda 25 sano u dambeysay dowladdii carta lagu soo dhisay iyo intii ka dambeysay dabcan taasoo hadda nolosheena aad ugu xiran tahay inkastoo taariikhdii horena sida hadaaya abukaataha iyo professor Jibriil iyo ay ka hadlayeen professor Abukar iyo ay ka hadlayeen taariikhdu ay isku xiran tahay oo aan la kala meeri karin haddana intaas dambe aniga qiimeynteyda iyo fahamkeyga qof ahaaneed taariikhda hadda halka laga sheegay muddo badan ama anigu wariye ka shaqeynay ama dowladdu ka shaqeynay runtii Soomaaliya waxaa ka jira waxna rajo geli kara oo na farxad gelin kara marka aanan xaaladaha mid iyo laba iyo saddex iyo challengeska iyo caqabadaha u fiirin laakiin aan jihada u fiiriyo jihada baabuurku u socdo aan u fiiriyo aad baan u faraxsanahay ma walwalsani cabsi ma qabo mustaqbal dhismaya oo hore u socda oo ifaya ayaa indhahaygu arkaa macnaheedu ma aha caqabad ma jirto culays ma jiro dhib ma jiro laakiin habeenba meesha ay ku hoyanayso 4 madaxweyne iyo 12 prime minister ayaan la soo shaqeeyay oo aan xuquuqaal u ahaa xukuumad wixii ay kala wareegtay madaxweyne wixii uu kala wareegay marka taas marka aan ku dhiso Soomaaliya sanad ay la mid ahayd sanadkii ka horeeyay 25 sano ma soo maray qiimeynteed yani sanad aan ka fiicnayn sanadka ka dambeeyay ma jirin marka runta laga hadlo marka aan sidaas leeyahay dhowr tiir ayaa asal u ah oo ugu waaweyn waxa ugu muhiimsan waa midnimada siyaasadeed dowladnimadu ma isku imaanaysaa mise waa kala durkaysaa waa factor markasta in la tixgeliyo mudan indhaha lagu fiirinayo dowladnimadu ma wax dhismayo oo isku imaanayo dadka Soomaaliyeed isku soo socdaan mise waa kala tagayaan 25 sano geedi kasta oo la guuro kii hore waa ka balaarnaa more inclusive oo ka ahaa dadka ka qayb galaya iyo nidaamka ku jira iyo baaxadda meesha uu gaaro intii hore waa ka balaarnaa waqti badan ay qaadanaysaa laakiin haddaad carto iyo Embagati isbarbar dhigto Embagati iyo Djibouti haddaad isbarbar dhigto Djibouti iyo Muqdisho dowladda madaxweyne Shariif haddaad isbarbar dhigto 2012 dowladda madaxweyne Shariif iyo madaxweyne Xasan ku kala wareegeen iyo dowladda madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xasan haddaad isbarbar dhigtid maalin aan dowladnimadu intii hore ka sal balaaranaynin ma jirto waa qodob kamida waxay dhiirigeliyay oo farxad geliyay wax labaad waxa waaye dhismaha dalku ma sii burburaya yani institutionskiisa iyo dhaqaalihiisa kaabayaashii ma xoogaysanayaan oo ma dhismayaan mise waa burburayaan ayaduna waa su'aal kale oo aqoonyahanku ay baari karaan oo ay daraasayn karaan haddaad fiiriso waxbarashada haddaad fiiriso caafimaadka haddaad fiiriso dhaqaalaha haddaad fiiriso wadooyinka dhinac kasta oo aad fiiriso magaalooyinka Soomaaliya 90% magaalooyin aan soo kaban waa jiraan laakiin 90% horey nolosha u socota dhaqaalihii baa xoogaysanaya waxbarashadii baa balaaranaysa caafimaadkii iyo adeegii bulshada gaaraya kordhaya hay-adihii dowladda ee dadka u adeegi lahaa baa xoogaysanaya hadday tahay maxkamadihii hadday tahay booliiskii hadday tahay wasaaradihii hadday tahay maamuladii degmooyinka intaa waa dhismayaan maalinbana maalinka ka dambaysa waa kasii xoogaysanayaan waana ka balaaranayaan ayaduna waa factor kaleeto oo muujinayo jihada dalkeenu uu u socdo ayay muujinaysaa yacni xiriirka dibadda iyo dalkeena sida loo arko indhaha adduunyadu ay ku aragto iyo sida naloola macaamilo iyo adduunka xiriirka aan la leenahay haddaad sidaas oo kaleeta fiiriso labadii carta dowladdii yani awooddii diblomaasiyadeed ay lahayd iyo maqaamkii Soomaaliya ee adduunka dowladda ka dambaysa waa ka xooganeed ilaa maanta aan soo gaarnay
meesha aynan isaga sheekeynaynin oo muxuu ahaa dalkeenu uu soo gaaray iyo waxaas awooddaas diblomaasiyadeed aan yeelanay iyo aqoonsigaas caalamiga ah waxa uu noo soo jiiday iyo caqabadaha na hor yaallay oo uu naga hor leexiyey. marka sawirka marka halkaas laga fiiriyo oo halkaas laga istaago, rajo iyo iftiin ayaa horteena ka soo muuqda. maxaa marka caqabada ugu weyna tahay oo mar badan laga yaabo dadka waxa ku soo dhacay, su-aasha ugu horeysa ku soo dhacaysa waxay tahay waxaa isku milan oo isku dhex daran xaqiiqada dhulka taalla iyo waxa socda. oo haddaad Baydhabo tagto ama Garowe tagto ama Boorama tagto ama Kismaayo tagto, runta taalla iyo waxa idaacadda ka socda ama Facebooka ku qoran, farqi aad iyo aad u weyn baa u dhaxeeya. si marka loo fiiriyo adduunyada oo dhan, warka xun iyo warka fiican ma tartamaan. dadka aqoonyahanka waa yaqaaniin, wariyaasha waxaa la lahaa bad news is a good news. haddii war xunu jiro, ninka wariyaha maalintaas isaga maalintiisa maalintaas waay. laakiin warka fiican Baydhabo sheeka naxdin lahaa ka dhacday marka Facebook la soo geliyay iyo marka la yiraahdo Baydhabo wado 3 kiiloomitir ha la furay, tensionka dareenka bini'aadamku isku soo ma qabanayo. war balaayada dhacday fiiriyo qofku isleey markaas uu tagayaa oday meel fadhiyo caytama reerkeena la dhacay ka hadlay. laakiin wado markuu arko wax iska caadi waaye wadadan, ama inay jiri jirtay inay jirinba ma yaqaan. marka waxa isku milan saameynta ay dadkeena ku leeyihiin warka idaacadda ka maqlaan iyo sheekada maaragtay la soo tabiyo hardanka siyaasiga ah oo caadiga ah oo nolosha ka mid ah ayaa waxa uu daboolayaa horumarkii. hadda waxaa laga yaabaa tusaalaha ugu dambeeya markaan idin soo qaato, dowladda hadda maanta joogta waxaad maqasheen waxyaabo waaweyn oo qaranka Soomaaliyeed taariikh weyn u ah oo dalkeenu u gaaray, oo ay ka mid tahay Security Council-ka inaan xubin aan joogto ahayn aan ka helayno insha Allah tacaala, aan helnay oo ku fariisanayno January. so wax aad iyo aad u weyn ma Soomaaliya 5 bilyan oo deyn ah oo ummadeena ku taagneed aan la ka cafiyo oo adduunyada naga cafisay oo dalal aad u badan oo naga horumarsan aan ku guuleysan in laga cafiyo. so wax kale oo weyn ma ana qabatayntii hubka ee saareed ciidankeena ayaa maanta adduunyadu ku qanacday inay naga qaado oo nala ka qaado oo ciidankeena uu access u leeyahay inaan si dhammaystiran u dhisano. so wax aad iyo aad u weyn ma dhaqaaleena waxa ka shaqeeya Maxamed wadamada Afrika, wadamada ugu korista badan aan ka midnahay. GDP-geena 4 meequu maraya 4.2. so wax weyn ma waxaasoo dhan marka la barbar dhigo shirkii maamul goboleedyada Socdaan nin ka mid ah madaxda goboladu ka baxay, dadka sidee saameyn isugu leeyihiin labadooda marka isku barbar dhigtay. dadka taa u xiiso badan oo ay rabaan inay maqmaqlaan ay arkaan ay dhegdhegaystaan maanta dhinku weydiiyaan. يعني example aan tusaalan ka wada, tusaaluhu marka waxa waaye dawlad dhiska laguma cabiri karo, lagumana mitirin karo hardanka siyaasiga iyo gabadhacleynta siyaasadda oo ah dimuqraadiyadii iyo wixii aan rabnay iyo wixii aan u dagaalameynay in siyaasadda la isku haysto lagu hardamo oo aysan hal meel ka go'in. waa wixii aan u dagaalameynay. haddii marka dawladdii waa dhismaysaa iyo ma dhismayso, hebel iyo hebel is haysta, haddii lagu jaangooyo dhibaato waay. meesha marka ay naga laadahay meeshaas waay waxa oo dadka ka daboolayo horumarka. laakiin runtii dalka Soomaaliya ereyga ugu fiican waxaan u maleynayaa ma wuxuu ahaa, waxaan u maleynayaa abukaatuhu ahaa, Soomaaliya waa soo noqotay dawlad cagaheeda ku taagan oo dalalka adduunka ka mid ah waay. taas marka waxaan rabaa waa abaal iyo mahad ay leeyihiin dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee madaxda ahaa ee soo shaqeeyay 20 iyo dhowrkaas sanadood oo qof kasta hibantu meel ka raray meel uu geeyay, meel intuu ka raray meel uu geeyay, meel intuu ka raray meel uu geeyay. qofkana indhihiisu waxay qabtaan maalintaas mushkiladda ugu weyn hortaal intaas ay la eg tahay inta aad fikiri karto. waxaa laga yaabaa wixii priority u ahaa madaxweyne Cabdiqaasim
iyo wixii priority u ahaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waa kala duwanaayeen sababtuna waqtigaa kala duwanaa waxa hor yaalla kala duwanaa qofka marka madaxweynaha ama madaxda maalintaas talinaysa maalinba dalka waxbaa u leh ahmiyadda koowaad maanta waad maqasheen madaxweyne xasan sheekh markuu yimid wasaare xamse ahmiyadka ay la yimaadeen waxay ku fadhisay caqabadii dowladnimada markaa hortaagnay oo ay ugu waaweynaayeen 3 waxyaabood amniga oo nimankaas khawaarijta ah ay halis ku ahaayeen inay dowladnimada rogaan oo afgambiyaan intay dadka Soomaaliyeed ku milmeen oo dhibaato badan ay geysteen dagaalkii lala galay wuxuu suurto geliyay maanta baabuurka Muqdisho ka baxa inuu magaalada Gaalkacyo si nabad ah ku tago waa inta ugu yaro aad ku fahmi karto wuxuu suurto geliyay dadka Soomaaliyeed oo aan hubo dad ganacsataa halkaan jooga inay ka mid yihiin oo xoolahooda ay khawaarijtu canshuuri jireen ayaga oo China yaala ama America ka tagin maana fayska loo diri jiray in maanta lacagtaas ay u baaqatay dadka Soomaaliyeed oo aan bambooyin lagu dilo lagu soo iibinayn waxay dhashay maanta culimada Soomaaliyeed qaar badan oo kamid halkan ay joogaan oo meel kala duwan isaga yimideen intay fariistaan dadka Soomaaliyeed ku dhiiradaan u sheegaan ay dhahaan nimankaas waa khawaarij hal iska dhiciyo ilmaha laga cishado halala diriro halkaasuna dhaxalsiya dagaalkaas maanta inaan u heesayno oo aan u sacbireyno oo aan ku baraambureyno shabaab waxa ogaataan wax iska dhacay ma 5 sano 4 sano 5 sano ka hor ma u malaynay meeqa qabiilo Soomaaliyeed awoodeen inay isku yimaadaan dhahan shabaab ma la dirireyna meeqa qof awoodeen inay ku baraamburaan shabaab ay ku heesaan ay ka hadlaan ay ku gabiyaan laakiin maanta wax laga baqan ma qof kasta waa ka hadashaa bal waa lagu tartamaa qabiiladu waa ku tartamaa wax iska dhacay oo iska yimid oo iska samaysmay ma aha magaalada Muqdisho guri kasta oo kamid ah maanta kaamira ku xiran iyo dukaan kasta dadka Soomaaliyeed ay xirteen laakiin sanada ka hor maxaan ka hadlaynay sanada ka hor dadku telefoon inta qofku intuu telefoon ku soo diro inuu kula hadlo wuxuu ka shakinay in dhaxda shabaab ku jiro oo telefoon wala maqlaa aan isku imaano ku dhahay markuu ku yimaadna meelo fiirinayo waxay ahayd wax la abuuray Soomaa dadka marka aqoon-yahanka ah malaha dadka u cabiri kara oo aqoontaas leh masaafada iyo distance-ga ay tahay qabiil dhan inuu isku yimaadeen anako reerebela maanta qabiilada Soomaali ugu sharafta badan oo lagu faano macawisleyda kamid ah Soomaali facts waaye xaqiiqo waaye magaalada Muqdisho inuu guri kasta kaamira lagu xiro oo qof kasta kaamirada xirto oo dadka hadda ma aha dawlad hadda ma force garayso ayaga wata because waa arkay noloshooda waxay ka bedeshay arkeen tuugadii dhibaatadii anshaxumadii ilmahoodii dadka hadda ku ilmihii ku ilaashadaan iyo gurigooda waxa ka socda marka amniga halkaas aan ka marayna waxa dhinac socota ciidankeena oo numberkiisa la laba jibaaray miisaaniyadiisa la laba jibaaray qalab uuna hore u haysan oo ay ka mid tahay diyaaradihii iyo hubkii cuslaa helay ayagu isku filan haday tahay logistic iyo haday tahay dagaal iyo haday tahay dhaqaale halkaas ay amniga ka marayna dabcan wali wax badan baa naga halaysan waa fognahay ma dhowin shaqo badan baa noo taala laakiin horumaran ka sameyn waxa labaad oo dawladdu ay xoog saartay waxay ahayd siyaasadda in la xasiliyo ama la rasmiyeeyo geediga 25 sano ah oo aan ka hadlaynay maalinba odayaal iyo ikhyaar Soomaaliyeed oo maalinkaas xaajadu la gudbeenooda intay isku yimaadaan bay waxay dhaayeen maantay seen u guurnaa qaabkeen dawladda u dhisana maalin 120 oday isku keen maalin 720 oo loo dhis isku keen haddana 2 baarlamaan isku dar intaasoo dhani geedi bay ahaayeen dawladnimada adduunku yaqaano wax ka baxsan ay ahayd nidaamka dawladeed adduunku isla yaqaano dimuqraadiga wax ka baxsan ay ahayd charter la sameeyay charterkii koowaad charterkii labaad wax adag ay ahayd maalinta carta la joogo in charter la sameeyo oo dad Soomaaliyeed intay isku yimaadaan qodobo charterkan aan hagaya dhahan way adkay embagaati la yimid charterkii labaad la sameeyay waa lagu soo mooday
intaasoo dhan dowladaha waajibaadkoodu waxay ahaayeen dowlad kasta dalka inay gaarsiiso doorasho qof iyo coda dastuurna inay dalka u samayso mandatekii madaxweyne cabdiqaasina ku jirtay mandatekii madaxweyne cabdullaahi yuusuf ku jirtay